بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaad channelkeena farxiya kushiin asxaabteeda qaaliga mar kale muuqaal cusub caawa waxaa noo wadaa laba casho oo fudud maasha Allah laga sheekeyn karin soo dhawaada daawasho wanaagsan midii u horeysay qudaar iyo ukun waaye tan waa hilib digaag kabaab oo si yar u sameynay maasha Allah kabaab aad u macaan badan laga sheekeyn karin midii u horeysay ayaan ku bilaabaneynaa daawasho wanaagsan marka hore waxaan soo qaatay burkii waxaan ku daray wax yar oo cusbo ah waxaan ku qasayaa caano intaas oo kaliya ayuu ka kooban yahay burka sida sawaayada camal ama fooliyada sambuuska sida loo qasa camal ayaad u qasaysaa qasab ma ahan in lagu daro caano biyaa ku qasan kartaa si fiican aan usoo qasayna insha Allah haddii ay tahay channelkan markii kugu horreysay aad soo booqato waxaan kaa codsanaa subscribe inaad taawatid haddii muuqaalada ay ku cajab geliyaan kadibna gambaleelka taawo si muuqaal walba usoo dhigo uu kugu soo dhaco muuqaalka aad daawanaysa hadduu kusoo gaaro like noo saar insha Allah kadib waxaan ku darayaa wax yar oo bur ah sida caadiga sawaayada loo qaso camal ayaan u qasayaa wax qamiir ah kuma darin saas ula socda bur iyo cusbo iyo caano waaye intaas oo kaliya isku soo qasaynaa si fiican kadib waxaan ku darayaa wax yar oo saliid ah kadibna gacantaan la galeynaa si fiican ayaan usoo qasayaa insha Allah casheero fudud quraaca ka dhigan kartaa casha ka dhigan kartaa meel ay diidayso ma lahan bacan soo qaadanaya afkan ka saarayaa waxaan sugaynaa ugu yaraan 15 daqiiqo oo kaliya mise intaan wax kala diyaarinayn oo kaliya ayaan sugaynaa insha Allah dhinaca kale digsiyan dabka saaray waxaan ku shubayaa wax yar oo saliid ah kadibna basal ayaan soo jarjaray waxaan rabaa inaan ku daro digsigii kadib saliid yar aan ku shubayaa saliid adaa ku badsan karo adaana ku yareyn karo hadda waxaan rabaa inaan diyaariyo qudaartii oo aan gudaha u gelin lahay insha Allah jeex basal oo si yar usoo jarjaray ayaan ku daray waxaan sugayaa basasha wax yar intay ka yar gaduudanayso kadib ayaan kusoo laaban doonaa oo qudaartii ku dari doonaa insha Allah hadda waan kusoo laabtay waxaan ku darayaa toon hal xabo toon oo soo tumay ayaan ku darayaa wax yar qaadada dhex marinayaa intaas kadib waxaan ku darayaa qudaarta waxaa waaye yaanyo oo soo jarjaray hal xabo kadib waxaan ku darayaa cabbage iyo maxaan ku yiraahdaa karooto iyo ukun intaas qudaarta intaas leen ka rabaa inaan ka sameeyo wixii xawaaji ah yaanyadii wax yar markay yara bislaato waxaan ku darayaa qaadada haafkeeda oo xawaaji dhudhuub ah kadib waxaan ku darayaa qaadada haafkeeda oo huruud ah wax yar oo cusbo ayaan ku daray intaas kadib qaadadan dhex marinayaa qaadadii markaan dhex mariyo kadib waxaan kusoo darayaa qudaartii oo noo diyaarsan barbarooni cabbage iyo waxaa waaye karooto qaadadii markaan dhex mariyo sidoo kale waxaan ku darayaa 3 xabo ukun ah marka hore si fiican ayaan u walaaqayaa wax biyo ah kuma darin dab kale u yaray intaas kadib qaadada markaan si fiican u dhex mariyo waxaan ku darayaa 3 xabo ukun ah ukunta iyo qudaarta oo kaliya rabaa inaan ku habeeyo haddii ukunta ay ku dhibayso ama aadan jeclaan waa ka dhaafi kartaa qudaarta oo kaliya kugu filan hilib iyo wixii aad rabtid waa ku darsan kartaa macna ma lahan laakiin aan hilib la'aan rabaa inaan kariyo dabkan u yareeyo daboolkan dhab ku siinayaa 5 daqiiqo kadib waa kusoo laabtay sidoo kale qaadadan dhex marinaya waxaan rabaa ukuntii iyo qudaarta inay si fiican isku qabsadaan qoqoyaan inay yeelato lama rabo hadda waa diyaar dabkan ka dejinayaa saas aan rabaa inay kusoo baxdo adigoo wax biyo ku darin ay si fiican u bislaanaysaa maasha Allah dhinaca kaleeto burkii waa diyaar burka waxaan rabaa inaan soo gogooyo oo aan soo kuskuuso waad dareemi kartaan siduu u jilicsan yahay wax yar oo saliid ayaan gacanta soo marsaday kadibna burkii aan sidaas ugu dhex celinayaa bur adag inuu noqdo waa laga fiican yahay saana usoo kuskuusaa ujeedaanba intii qiyaasta hal xab sawaayad camal aa ka dhigan laheyd ayaad usoo goynaysaa waan soo kuskuusay intaas kadib hal xabaa soo qaatay wax yar oo bur ayaan ku dadaadiyey kadibna waan fidinayaa waa inaad fidisid oo kastoo qafiif aad ka dhigtid si weyn oo balaaran oo qafiif ayaan u fidinayaa insha Allah markaan sidaa balaaran u fidiyo saa ujeedaanba burku waa qafiif kadib labada dhinac ayaan ka jarayaa si uu iskula ekaado intaas kadib dhexda ayaan ka jarayaa laba qayb oo isla eg waa inaad ka dhigtid labadii qayb waxaa laba xabaa ka dhigaysaa kastoo qalqalooca u jara laakiin macna ma lahan waxaan soo qaadanayaa hal xabo wax yar oo buran sida u marmarinaya dhinac kale ayaan u gedinayaa si uusan alwaaxa ugu dhegin waa isla yar simayaa wax yar kadib waxaad soo qaadanaysaa qudaartii ukuntii ku diyaarsan halka dhexda ay u saaraysaa haddii aad doontid farmaajaha ku darsan kartaa cheese-ka micnaha waad ku dari kartaa haddii aad rabtid haddii aadan haysanin saan aad u samaysan kartaa casho yaroo fudud isku dheelitiran ayay noqonaysaa insha Allah habeen walba bariis lama cuni karo iyo baasto soomaha waa in la bedelo
intaas kadib saas usoo duuduubayaa halkaasaan wax yar kasoo laabayaa sidoo kale dhinaca kale ayaa wax yar ka laabaysaa meel yar inuu banaan ka noqdo lama rabo intaas kadib waxaan soo qaadanaya wax yaroo biyo ayaan sidaa u marinayaa saa ujeedaanba waxaa la rabaa si fiican inuu isku qabsado kadibna waa kusoo duubaysaa saasa usoo duubaysaa saan ayaan kusoo wadaa insha allah waxaan rajeynayaa inaad fahanteen dhinaca kale waxaan dabka saaray digsi waxaan ku shubay wax yar oo saliid ah saliidda aadna uma badno aadna uma yaro kadibna saasa ugu soo gurayaa dabka waxaa la rabaa inaad u yareysid waxaa la rabaa inuu si fiican u bislaado gudaha uu si fiican uga karo haddii saliid aad u karkaraysa aad ku ridid oo dhaqso aad ka bixisid waxaa waaya gudaha kama karaayo saas ula soco dabkaad u yareynaysaa waxaad sugaysaa ilaa 4 daqiiqo kadibna dhinaca kale ayaad u gedinaysaa sidoo kale 4 daqiiqo ayaan sugaynaa hadda waa diyaar waxaan rabaa inaan ka dejiyo intaanan ka dejinin marka u hore dhinacyadan sida u warwareejinayaa geesaha xitaa inuu ka gaduuto waaye cashadeeni koowaad saan ayay kusoo dhammaatay waa ujeedaan xagga waxaan kasoo saaray waa yaanyada oo jibsiga liin dhanaan basbaas yaa maasha allah casho yaroo fudud laga sheekeyni karin waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideen midda labaad ayaan u gudagalaynaa tan sheekadeedu way soo dhammaatay labadooda kii ku anfaco ku cajabgeliyo ayaad samaysan kartaa micno ma lahan intaan iyo galaaskaada caanaha haddii aad isku qabatid wax kaa maqan ma lahan cashada labaad saan ayay kusoo baxday ayadana waa ujeedaan kabaab yariiriis ah iyo waxaa waaye jibsigu wuu inoo diyaarsan yahay kabaabkaas rabo inaan idinkaga faa'iiday iyo qaabkan u sameeyey daawasho wacan halkan waxaa ii yaala hilib digaag nus kiilo toon 2 xabo basal 1 xabo weyn barbarooni 2 nooc ah liin dhanaan 1 xabo iyo kamsar caleen inta waxaa ii yaala labaniyad ama kastar qofba si u yaqaano dhinaca kale waa cusbo xawaaji dhudhuub iyo wax yar oo huruuda intaas rabo inaan isticmaalo insha allah marka hore waxaan soo qaadanayaa mashiinka waxaa kaloon ku dari doonaa ukun 1 xabo ukunta qaybta jaallaha ah un baan ka isticmaalaynaa mashiinkan soo qaato waxaan ku ridayaa basashii barbarooniyihii iyo toontii intaas rabaa inaan isku soo shiido marka u hore mashiinkan asxaabta isoo weydiiyeen mashiinkan kan korontada ma ahan waa midka gacanta kan korontada uu kaa cunaayo soo maahan waana isku mid kan gacanta lagu jiijiidaya fiican korontana kaama cunaayo waa kaasaa qudaartan saas ayuu u jarjarayaa maasha allah si yaryaroo qurux badan ayuu usoo jarjaray basashii iyo barbarooniyihii ugu dambeyntii waxaan soo qaadanayaa saxankaas ayaan ku gedisanayaa kadib ayaan waxaan shiidayaa hilibka wixii dhan haddii aan dhaha hal mar si fiican aan iskula shiidaa mashiinku wuu yaryahay inaad kala shiididaa fiican haddii aan isku wada shiido mashiinka ma deeqaayo saxankaas ayaan kusoo gediyey kadib waxaan soo qaaday hilibkii ayaan kusoo riday iyo kamsar caleentii iyo hilibkii ayaan hal mar isku soo shiidayaa kadib ayaan ukunta ku dari doonaa insha allah 2 mar 3 mar markaa sidaa ugu shiidid kadib waxaan soo qaadanayaa ukunta qaybta yellow ah ayaan ku daray sidoo kale mar labaad ayaan shiidayaa haddii mashiinka aad heli karin hilibka shiishiidka caadi mashiinka caadiga lagu shiido haddii uu ku yaalaad ku shiidan kartaa kadibna waxyaabahan kaleeto intaad si gooni u jarjartid aad isku wada dari kartaa micno ma lahan qasab maa inaad isku wada shiidid waxaan dhan markaa mashiinka aan ku shiisaa ujeedaanba waxaan soo qaadanayaa baaquli waxaa kaloon ku dari doonaa wax yaroo bur ah kabaab aad u macaan badan ayuu noqon doonaa insha allah hilibkii waa ujeedaan saas markuu usoo shiidmo baaquliga ayaan kusoo gediyey kadib waxaan soo qaadanayaa basashii iyo barbarooniyihii aan isku soo shiidnay ayaan ku darayaa intaas kadib waxaan ku darayaa xawaajiyadii xawaaji ayuu noocaa heli karta ayaa ku darsan kartaa qaadada haafkeeda oo huruud ayaan ku daray qaadada haafkeeda oo xawaajiyo isku dardar ah waa xawaaji dhudhuub xawaaji burbuur heel iyo qorfo kadib waxaan ku darayaa cusbo xawaajigan qaabkan u sameynayo waan soo geliyey haddii aad channelkii ku cusub tahay hore u gal insha allah waad ka helaysaa xawaajiyada sida ugu fudud aad u samaysan kartid qaadadii koowaad oo labaniyad ayaan ku riday qaadadii labaad ayaan ku shubay qaadadii saddexaad ayaan ku shubaaya qaadadii saddexaad markaan ku shubo saa ujeedaanba kadib waxaan ku darayaa liin dhanaan ayaan kusoo miiraynaa 1 xabo oo liin dhanaan ayaan ku miirayaa haddii aad heli karin waxaan ku irahdaa kastarka waxaad isticmaali kartaa burka ku bedelan kartaa macno malahan burka xitaa waan ku dari doonaa
liin dhanaantii hasha xabo markaan kusoo miiro kadibna si fiican iskugu qasaaya markuu hore jilaac aad inuu kaa noqdo lama rabo haddii kasta uu jilaac aad u kaa noqdo waxaa ku yara daraysaa wax yar oo bur ah waxaan ku daray 2 qaado oo bur ah saa ujeedaan kadibna si fiican usoo qasaayaa alaabtana sidoo kale saliid aad u kulul uma baahno wax yar saliidda markay soo yara kululaato ayaad ku dubaysaa si gudaha xitaa uu si fiican uga karo saas markaan usoo qaso saa ujeedaanba dhinaca kale saliidda dabkii saaran saliidda wax yar markay kululaato dabka ayaan ka yareeyay wax yar oo biyaan gacanta soo gashtay kadibna saas ayaan usoo qaadayaa saa ujeedaanba kadibna saliiddii ayaan ku rideynaa saliiddan waa dareemi kartaan saliid aad u karkaraysa ma ahan saana ugu soo gurayaa yariirihiisaa ka dhigi kartaa waaweynaa ka dhigan kartaa saa hadda markay tahay wax yar waxaan sugaynaa intuu kasoo yara gaduudanaayo dabkana u yarey si tartiib tartiib u karaayaa markuu diyaar noqdo ayaan kusoo laaban doonaa insha allah hadda waa diyaar aan kusoo laabtay waa ujeedaa sida quruxda badan uu kusoo baxay waxaan soo qaatay baastamiirkaas waxaan u dhigay baaquli kadibna saasaan ugu soo gurayaa maasha allah ujeedaan cashadeeni labaad cashiiroo fudud oo qurux badan laga sheekeyni karin waxaan rajeynayaa ka faa'iideen muuqaalka like noo saar asxaabteena usii shargaray jazakallahu khayran please like and share waxaa idinkaga tagaa khayr iyo caafimaad mac salaam